waxay u soo dalxiis tageen isaga iyo saaxiibtiisii buurahan aadka u dhaadheer si ay xagga sare u koraan. Waxa uu koray xagga sare si uu saaxiibtiisu caawiyo, laakiin waa uu isaga tegaya ilaa markii dambe ay isku dayday inay buurta korto. Si lama filaana waa ay kasoo dhacaysaa, laakiin xarigeeda ayay qabsatay. Saaxiibkeeda ayaa u qaylinaya si uu caawiyo, laakiin markii dambe waxay lugaha la heshay buurahan dhexdooda ilaa ay markii dambe weyday jabaqda saaxiibkeed. Si dhiiran ayay usoo koraysaa buurta, waxayna isku dayaysaa inay xarigeeda adkaysato. Saaxiibkeeda ayay fiirinaysaa, laakiin waa ay weynaysaa. Waxa uu kusoo laabtay isagoo xaaladiisu bedelan tahay ilaa markii dambe dhiigga saaxiibkeeda uu kusoo daatay. Waa ay fiirisay, waxayna gartay in saaxiibkeed la dilay. Buurta ayaa laga soo tuuray saaxiibkeed, isla markiiba wiishka ayaa lagu jiiday, iyadii mana garanaysa cidda ku jiidaysa, laakiin markiiba mindi ayay lasoo baxaysaa, waxayna iska jaraysaa xariga. Dhagaxii buurta ayay qabsanaysaa iyadoo rabta inay si degan uga boodo, ilaa markii dambe ay iska soo tuurtay buurtii. Waxay aragtay saaxiibkeeda oo meyd ah, afka ayay qabsanaysaa, waana isku naxday. Isla markiiba waxay isku dayaysaa inay meesha ka cararto, waxayna doonaysaa in gaarigeeda ay raacdo, laakiin markiiba waxay ku dhacaysaa siriqdan oo lugaha ka qabsatay. Dhulka ayay ku dhacaysaa, balse nasiib darro waa la jiitay. Joornaalka ayaa lagu soo dhejiyey 2 sano kadib. Dowladduna waxa ay baadigoobaysaa weli gabadhan. Waa filimkeena cabsida badan ee maanta aan idiin soo gudbin doono daawadayaal. Waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad muuqaalka like saartid, channelkana subscribe noo tiraahdi. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Kusoo dhawaada filimkeenii oo dhammaystiran. gaarigan idiin muuqda waxaa wata ninkan oo lagu magacaabo Chris. waxa uu helay shaqo, waa uu daahsan yahay, waxaana u socdaa shaqadii si uu interviewga u soo maro, laakiin waxa uu arkay in wadadii ay xirteen baabuurtan waaweyn. traffic jam aad u daran ayaa jira. saacadda ayuu fiirinaya isagoo aad u yaaban, ilaa markii dambe uu gaariga kasoo degay. ninkan ayuu ka nixinaya ilaa markii dambe yidhi maxaa rabtaa, laakiin waxa uu sheegayaa inuu rabo inuu wadada maro, laakiin baabuurtan ay sixirtay. waxa uga warbixinaya xaaladda meesha ka jirta. isagoo aan qanacsanayn ayuu kasoo laabanaya, maadaama 5 kilomitir ay baabuurtu taxan tahay, jaamkana uusan ka bixi karin. dib ayuu ugu laabtay wadadii. kambanigii uu socday ayuu rabaa inuu sheego in xaaladdu ay xun tahay, laakiin teleefonkii khadka waa uu ka baxay, mana ahan meel signal halkan ka shaqeeyo. gaariga ayuu hore usoo dhaqaajiyey, waxa uuna rabaa inuu halkan ka helo wax caawimaad ah. halkan ayuu imaanaya, wuxuuna arkaya baabuurtan aadka u faraha badan ee taalla. kadibna gaariga ayuu kasoo degaya, waxa uu imaanaya ninkan tabcaanka. isla markiiba teleefonka ayuu ku boodaya, laakiin teleefonka signal ma lahan. ninkan ayuu weydiinaya inay jirto waddo kale oo loo maro magaalada, laakiin jawaab ma uusan siin ilaa markii dambe uu kasoo dhaqaaqay. waxa uuna arkaya maapkan ku dhegan halkan. isla markiiba maapkii ayuu fiirsanaya, waxauna raadinaya waddo kale ilaa markii dambe uu arkay wadadan laynka cas, taasi oo loo maro magaaladii uu socday. Chris waa ku guulaystay ayuu leeyahay inaa waddo kale helo. ninkiina waa uu fiirinaya isagoo aan wax jawaaba siin. gaarigiisi ayuu dib u soo qaatay, waxa uuna soo galay kaymahan aadka u waaweyn. waxa uuna raadinaya wadadii kale ee magaalada loo mari lahaa. nasiib wanaag wadadii waa uu yimi, kadibna waxa uu arkay inay tahay wadadu 2 dhinac. waxa uuna ka fakerayaa wadada uu mari lahaa. magaca wadada ayuu akhrinayaa, kadibna gaarigiisii waxa uu soo leexinayaa dhankii kale. wadadii midigta ka xigta ayuu raacay, isagoo dhex socda kaymahan aadka u waaweyn. baciidkana halkan ku baktiyay ayuu arkayaa. waa uu sii dhaafaya ilaa uu markii dambe shil galay. baabuurkan ayuu ku dhacay. waa uu argagaxay Chris ilaa uu markii dambe gaarigii kasoo baxay. waa ay kusoo yaaceen dadkii kale ee gaariga saarnaa. isla markiiba waxuu ku leeyahay raalli ahaada, aniga ayaa idiin samayn doona gaarigina, laakiin markiiba waxay ku leeyihiin istaji, adigu wax ma qabtaa. waa is wareysanayaan, waxa uuna ku leeyahay waxaan u socday magaalada. kadibna waxa uu weydiinayaa sababta uu gaarigooda halkan u istaagnaa, laakiin markiiba gabadhan ayaa u sheegaysa. waxay ku leedahay gaarigii waa uu naga banjaray, siligan ayaa isku duuduubay. isla markiiba waxay isla qaateen inay lugeeyaan. baabuurtiina waxay uga sii tageen ninkan oo lagu magacaabo Ivan iyo saaxiibtii. wadada ayay soo qaadeen iyagoo raadinaya inay helaan cid caawisa. Ivan iyo saaxiibtii waxaa looga tegay baabuurta inay sii ilaaliyaan. halkan ayay romantic ku jilayaan, halka weli saaxiibadood ay sii socdaan wadadii. kadibna waxay arkayaan dabagaalahan halkan lagu cunay. waxay la yaaban yihiin cidda halkan ku cuntay, ilaa markii dambe ay isaga soo dhaqaaqeen, kayntiina ay soo raaceen. Ivan iyo saaxiibtiisa halkan ayay baabuurtii baaranayaan, waxayna raadsanayaan waxay cunaan ilaa uu markii dambe ka dhaqaaqay. waa ay weynaysaa saaxiibkii, kadibna kayntii ayay soo gelaysaa. nasiib daro waxaa aragtay kabahan halkan yaalla, waana kabaha saaxiibkeed. waa ay u soo dhawaanaysaa iyadoo aad u cabsanaysaa, ilaa markii dambe ay aragtay wax aysan filanayn, waana dhegta saaxiibkeed oo halkan lagu cunay. aad ayay u baqaysaa, iyadoo aad u naxsan ayay gadaal usoo baxaysaa, laakiin markiiba ninkan dalqalka ayaa gadaal kaga yimi. waa uuna dilay gabadhii. dhanka kale saaxiibadooda halkan ayay ku baashaalayaan, welina waxay raadsanayaan waddo ay maraan. buundadan ayay soo istaagayaan, waxayna qorsheynayaan jihadii ay raaci lahaayeen, ilaa markii dambe ay soo dhaqaaqeen iyagoo soo galay kayntii aadka u weyneyd. nasiib wanaag waxay arkayaan gurigan kaynta dhexdiisa ku yaala. markiiba waa ay soo dhaqaaqayaan iyagoo aad ula yaaban. Chris iyo JC waa ay la yaaban yihiin baabuurtan faraha badan ee guriga hortiisa ku baakimaan. waa ayna shakisan yihiin. guriga hortiisa ayay istaageen, waxayna rabaan inay qarqaraacaan albaabka, laakiin cid kama aysan furin, ilaa markii dambe ay go'aansadeen inay guriga gudaha u galaan. Chris albaabka ayuu iska soo waxa uuna gudaha u soo galay gurigii. cuntooyinkan meesha lagu cunay ayuu fiirinayaa miiska saaran. waa uuna fahmi layahay waxa ay tahay. dhammaantood cabsi ayaa soo food saartay, waxayna la yaaban yihiin nolosha halkan ka jirta. JC waxay arkaysaa furayaashan faraha badan ee halkan yaala,
yaala waana baabuurtii banaanka taalay iyo sidoo kale mindiyahan waaweyn ee guriga ku safan. Chris waxa uu soo dul istaagayaa digsigan dabka saaran, waxa uuna fahmi layahay waxa lagu kariyay ee ku jira. Qolkan kale ayuu soo galayaa Chris kadibna wuxuu arkayaa talaagada halkan taala. Talaagadii ayuu furayaa halka Carol ay gashay suuliga, isla markiiba waxay damacday inay suuliga isticmaasho laakiin waa ay matagaysaa qurmuunka saayidka ee kasoo baxaya suuliga. Chris talaagadii uu furay waxa uga soo baxaya dhalooyinkan, waxa uuna arkayaa ciridka bini'aadanka oo halkan ku jira, halka Carol oo ordaysay suuligii kasoo baxday iyadoo matagaysa. Nasiib darro, Chris waxa uu daaqada ka arkayaa gaarigan taraaga ee soo socda, waana baabuurkii ay lahaayeen dalqalatooyinkii. isla markiiba waa ay kala yaacayaan, waxayna rabaan inay ku dhex dhuuntaan guriga, kama bixi karaan guriga. Scott iyo saaxiibtii Carol waa ay soo raaceen, waxayna galeen qolka hoose ee guriga. ninkii dalqalka ah waxa uu soo galay guriga isagoo wata meydka saaxiibtood. JC waa iska ooyeysaa iyadoo sariirta hoosteeda ku dhuumanaysa, isla markiiba afka ayuu qabanayaa saaxiibkeed ilaa uu markii dambe dhiiggii gabadha kasoo baxaya uu gacantiisii taabtay. gabadhii ayuu miiska saartay iyagoo ujeeda ayuu gabadhii qalayaa, halka Chris iyo JC ay weli sariirta hoosteeda ku jiraan. markii uu hilibkii gabadha jarjaray ayuu iska seexday ninkii. Chris waxa uu kasoo baxayaa sariirta, waxayna doonayaan inay ka baxsadaan inta uu hurdo. JC-na waa ay kasoo baxday sariirta. Chris waxa uu doonayaa inuu ilbaabka ka baxo iyagoo iska ilaalinaya inaysan qar muujiyaan, halka Scott iyo Carol ay tartiib u socdaan. waxa ay soo galeen qolkii ay ku jireen Chris iyo JC, si tartiiba ayay usoo socdaan iyagoo doonaya inaysan sanqar muujin. waxa ay sii dhaafayaan meydka saaxiibtooda oo xubin xubin loo jaray. Chris tartiiba ayuu ilbaabkii u furayaa isagoo sanqadha iska ilaalinaya, isla markiiba waxa uu ku yidhi soo baxa, laakiin ninkii waa uu kacay ilaa markii dambe Chris iyo saaxiibadood ay soo carareen. buurta ka dambeysay guriga ayay soo fuulayaan, laakiin taraagii waa uu soo dhaqaaqay. ninkiina waxa uu soo qaatay gaarigiisii. waa ay badbaadeen laakiin ma yaqaanin jaha ay u socdaan. Scottna waxa uu aaminsanaya saaxiibtii Carol waxa uu ku leeyahay niyadda dhiso. waa ay soo carareen ilaa markii dambe ay yimaadeen bankan cidlada ah, waxaana yaala 100 gaari in ka badan. dadkii iska lahaana waxaa cunay nimankan bahalada ah. waa uu naxayaa Chris, waxa uuna fiirinayaa dhiigga baabuurta ku yaala, maryaha carruurta ee halkan yaala ee la cunay. Scott madaxa ayuu qabsanayaa, waxa uuna arkayaa inaysan ahayn maanta maalin uu ka baxsan karaa halkan. Chris hal mar ayuu arkayaa in baabuurkii uu soo dhawaaday, isla markiiba waa ay kala cararayaan. nimankii dalqalatooyinka ahna baabuurkooda iyagoo wata ayay yimaadeen meeshii. dhabarka waxay ku sitaan fallaaro aad u xanuun badan. waa ay soo dhaqaaqeen iyagoo ku raadinaya urka, laakiin markiiba Chris ayaa go'aan qaatay. waxa uuna rabaa inuu mashquuliyo, gacanta ayuu haadinayaa ilaa markii dambe ay xabad lugta kaga dhufteen. dhankiisa ayay usoo cararayaan labadii nin. Scottna waxa uu ka dhaadhicinayaa saaxiibtii inuu Chris badbaadiyo. waa uu soo cararaya isagoo raba inuu mashquuliyo mar kale. xabad ayay kusoo tuurayaan laakiin kuma aysan dhicin. kaynta ayuu soo galayaa, waa ina faraxsan yihiin nimankan ilaa markii dambe ay soo baxsadeen, halka Chris iyo JC ay soo carareen si ay u badbaadiyaan Chris. kadibna garbaha ayay soo qabanayaan. nasiib darro, labadii bahalba waxay eryanayaan Scott, halka Chris iyo JC ay soo qaateen baabuurkii ay wateen nimankii dalqalatooyinka ahaa. nasiib darro, mid ka mid ayaa soo baxsanaya, waxaana ka arkayaa muraayahada. waa ay ka cararayaan inta karaankooda ah, isla markiiba waxay arkayaan Scott oo halkan taagan. waa u yeerayaan, waxayna ku leeyihiin gaariga soo kor, laakiin nasiib darro, fallaar ayay caloosha kaga dhufteen. iyagoo ujeeda dhulka ayuu ku dhacaya isagoo 3 fallaar ku taalo. Chrisna waxa uu indhaha qabanaya saaxiibtii. waa isaga cararayaan, waxayna ogaadeen inuu Scott halkaas ay ku dhintay, halka dalqalatooyinkii ay u yimaadeen meydkii Scott halkanna ay ka jiiteen. Carol waa ay ooyeysaa, waxayna ka samri laadahay saaxiibkeeda oo horteeda lagu dilay. wadadan ayay soo qaadeen rafka ah, waxayna arkeen qorigan weyn ee laamiga lagu gooyey. taayirkii gaarigana waa uu banjaray, gaarigana uma dhaqaaqayo. waa ay kasoo degeen baabuurtii iyagoo raba inay u baxsadaan dhanka iyo kaynta. JC-na weli waxay sasabaysaa saaxiibteed Carol, maadaama iyadoo ujeeda la dilay saaxiibkeed Scott. dalqalatooyinkiina weli waxay baadi goob ugu jiraan 3dii qof ee ka maqnaa, iyagoo dhagaysanaya sanqadha kasoo baxaysa kaynta, halka 3dii kale ay weli dhex lugeynayaan kaynta ilaa markii dambe arkeen geedkan aadka u dheero xaggiisa sare gurigu ka dhisan yahay. jaranjartan ayay soo raacayaan, waxayna rabaan inay xagga sare geedka u koraan. dhammaantoodna waxa ay soo koreen jaranjartii ilaa markii dambe albaabkan iska fureen. kadibna waxay gudaha usoo galayaan gurigan ka dul dhisan kaymaha korkooda. daaqada ayay ka fiirinayaan, waxayna aaminayaan inay halkan caawa ku nabad heli doonaan. gurigii ayay baarid ugu dhaqaaqeen ilaa markii dambe ay kasoo saartay Carol halkan leyrkan ka ifaaya. isla markiiba waxay daweynayaan saaxiibkood Chris. dhiiggii ayay ka xirayaan maadaama uu dhaawac soo gaaray. labadii gabdhood telefoon ayay helayaan, waxaan isku dayayaan inay telefoonka wacaan, laakiin halkan maaha meel khad ka shaqeeyo. hal mar Chris ayaa waxa uu daaqada ka arkaya inay cadowgii usoo dhawaadeen iyagoo dab wata. waa ay fashilmeen, waxaana la ogaaday meesha ay joogaan. isla markiiba miiskan weyn ayuu soo jiidayaa, waxa uuna ka owdayaa meeshii ay kasoo geli lahaayeen, ilaa mid ka mid oo farihii la soo baxay. laakiin markiiba faraha ayuu ka qaraacayaa Chris, waxa uuna ka celinayaa inuu gudaha usoo galo, laakiin waxa aysan filayn ayaa dhacay. gurigii oo dhan waxaa isqabsaday qiiqiiqa ayay la yaaban yihiin meesha uu ka imaanayo, ilaa markii dambe ay daaqada ka arkeen in kayntii oo dhan ay wada gubeen. geedkii ay saarnaayeenna dab lagu shiday. madaxa ayay qabsanayaan iyagoo aad u naxsan. isla markiiba daaqada ayuu istaagaya Chris, waxaana ku leeyahay waa inaan halkan ka boodnaa. waxay isku diyaarinayaan inuu meesha iska tuuro ilaa uu markii dambe Chris uu ka booday daaqadii. kadibna waxa uu ku dullacayaa geedkan. isla markiiba waxaa soo baxaysa JC, waxayna iska soo tuuraysaa geedkii. iyadoo sii dhici rabta ayuu gacanta qabtay, halka
halkaas ayayna ku badbaaday. Gabadhii kale ayaa weli meesha ku harsan ilaa markii dambe iyaduna isu soo tuurtay. Saddexdoodiiba waxay wada joogaan meel aan kala fogeyn, halka saddexdii dalqalato ee geedka mid ka mid ah uu soo koray. Chrisna waxa uu rabaa inuu tago saaxiibtiisa oo halkan taagan si uu soo caawiyo. Carol halkan ayay taagan tahay ilaa markii dambe ninkii geedka soo koraya uu qoorta qabtay, waxa uuna afka kaga dhuftay faaskan idiin muuqda. halkaas ayay ku dhimatay. Chris waxa uu qabanayaa saaxiibtii JC afka si uusan codkeeda u maqlin ninkan bahalka. Geedihii ayay soo dul soconayaan waxayna rabaan inay geedka ka degaan si ay dhulka u gaaraan. Farsamo ayuu la yimi Chris waxa uuna ku leeyahay qayli, waxa uu rabaa inuu mid ka mid ah dilo. JCna waa ay qaylinaysaa ilaa markii dambe uu bahalkii arkay. waa uu soo degayaa bahalkii isagoo ordayay ilaa uu markii dambe horteedii yimi. waa ay weyday waxayna fiirinaysaa afarta jiho, laakiin gadaasheeda ayuu kasoo baxay isagoo qoslaya. laakiin markiiba qorigii uu hayay ayuu ku sii daynayaa Chris waxa uuna ka dhacayaa geedka isagoo weliba si xun u dhintay. waa ay ku guulaystay inay dilaan, laakiin laba ka mid ayaa weli usii haray. geedka ayay kasoo degayaan waxayna imaanayaan meeshan biyo dhaca ah. JC waxa ay ka quusatay noloshii oo dhan, laakiin Chris waxa uu dejinayaa niyadda waxaana ku leeyahay waan ka baxaynaa halkan. laakiin fast duulaya ayaa hal mar kusoo dhacay ilaa uu markii dambe geedka qabsaday, waxaana kusoo boodaya mid ka mid ah dalqalatooyinkii ilaa uu markii dambe dhulka iskula dhaceen. kadibna waxa uu ka tuuray buurta. nasiib daro saaxiibtii JC waa ay qaateen isagoo arkaya. isla markiiba ninkan booliska ayuu wadada ku arkaya gaariga wata, kadibna waxa uu ku leeyahay waxaan rabaa inaa caawis, laakiin isagoo u jeeda ayaa hal mar falaar laga dhex saaraya. waxauna ku dhacaya dhulka ninkii booliska ahaa. waa uu naxsan yahay waxauna arkay in la arkay, isla markiiba gaariga hoostiisa ayuu isku qariyay isagoo aad u cabsanaya. ninkiina waa uu yimi, kadibna waxa uu dul imaanaya ninkii uu dilay, laakiin uma jeeda Chris inuu gaariga hoostiisa ku jiro. kadibna gaariga xagga dambe ayuu soo saarsanaya ilaa uu markii dambe gaarigii soo dhaqaajiyay, halka Chris uu gaariga hoostiisa ku dhegan yahay. miiskan ayuu soo saartay gabadhii Chris ahayd, waxa uuna doonaya inuu mindidiisa ku qalo si ay ugu noqoto casho uu caawa cuno. halka kii kale isagoo meydkii wada uu yimi gurigii. Chrisna waxa uu ka degayaa xagga dambe, meydka ayuu soo jiidaya ninkii dalqalka waxauna la soo gelaya qolka. Chris isagoo dhuumanaya ayuu gaarigii kasoo degaya waxauna rabaa inuu saaxiibtii caawiyo. JC oo arkaysa ayuu ninkii booliska hilibkiisii gogoynaya. waa iska oyeysaa waa ayna qaylinaysaa, laakiin afka waa uu ka xiran yahay. dib ayuu ugu soo laabtay isagoo mindidan wata, kadibna waxa uu ka saaraya qoorta, laakiin guriga ayaa gubanaya. albaabkii oo dhanna waxaa ka kacaya dabkan idiin muuqda. mid ka mid ah dalqalatooyinka ayaa soo baxaya waxauna la yaabaya dabkan meesha uu ka yimi, laakiin Chris ayaa gaarigii turuskiisii ku dhuftay. waxa uuna gudaha u soo galay gurigii. dalqalatooyinkii mid ka mid ayay istagaalayaan, kadibna waxa uu ku dhufanayaa birtan ilaa uu markii dambe wadnaha mindi ka geliyay. kadibna dhulka ayuu ku dhacayaa. saaxiibtii ayuu dul imaanaya waxa uuna rabaa inuu xariga ka furo, balse nasiib darro mid saddexaad ayaa gadaal kaga imaanaya waxa uuna ku dhufanayaa dhulka. Chris waa ay qaylinaysaa saaxiibkeedna ma badbaadin karto ilaa markii dambe isaga oo dhan uu derbiga ku dhajiyay. JC xarigii ayay iska furtay, kadibna waxay heshay falaar ilaa markii dambe falaar ay madaxa kaga dhufatay ninkii dalqalka ahaa. waxayna badbaadisay saaxiibkeed. dhulka ayay ku dhacaya ninkii waa uuna usoo laabanaya, laakiin mar kale ayuu arkaya ninkii saddexaad oo kusoo booday, kadibna waxa uu la dhacayaa bir. mar kale JC waxaa looga baahan yahay caawimaad ilaa markii dambe ay qorigan madaxa kaga dhufatay ninkii dalqalka ahaa, laakiin waa uu kusoo toosay waxa uuna qaraacayaa iyadii. intii iyada uu ku jeeday ayuu qoorta qabtay, kadibna faas ayay la soo ordaysaa waxayna kaga dhufanaysaa wadnaha. halkaas ayuu ku dhintay kii saddexaad. Chris iyo JCna halkaas ayay ku badbaadeen. gurigii oo dhan waa ay gubeen si aysan usoo kicin dadkan meydka. gaarigii ayuu xabad ku dhufanaya si uu gurigu u ololo. waa ay badbaadeen ilaa markii dambe baabuurkii dalqalku lahaa ay soo kaxaysteen. daawadayaal filimkeeni maanta halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka.